soo dhaafay ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxay caasimada ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed. howlgalladan amniga lagu xaqiijinayo waxa ilaahay hadda laga fuliyay dhowr degmooyin oo ka tirsan gobolka Banaadir waana howlgallo sii socon doona. intii howlgalladan socdeen waxaa suurto gashay inay booliiska soo qabtaan dad looga shakisan yahay inay argagixisada la shaqeeyaan iyo kuwa qalqalgelinaya amniga guud. sidoo kale abaare 9 saac galabnimo shalay ciidamada booliiska oo gacan ka helay shacabka degmada Dayniley waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiigle ka tirsan al-shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. arrintan waxay qayb ka mid tahay qorshe balaaran oo lagu xaqiijinayo amniga dalka iyo caasimada. waxaa jira ciidamo dheeri ah oo la dhigay wadooyinka caasimada kuwaasoo baariya gaadiidka iyo wixii kale ay ka shakiyaan. waxaan ognahay in qorshahan xaqiijinta amniga caasimada ee la socdaan ama ay dhaliyeen culeysyo dhanka isku socodka meelaha qaar. sidaas darteed waxaa la diyaariyey gaadiid lagu qaado dadka oo u baahan caawinaad oo la geeyo meesha u baahan yihiin. ciidamada howlgalka fuliyana waxaa la faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwa ay difaacooda jidadka u taagan yahay falkii askari ka tirsanaa ciidanka milishiibi dowladda oo maanta ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ah darawalada gaadiidka shacabka. waxaan murugta la qaybsanaynaa qoyskii uu ka baxay muwaadinka Soomaaliyeed Allah u naxariistay marxuum Ibraahim Aweys Ahmed. sidoo kalena askariga dilka geysana waxaa la horgeyn doonaa sharciga. shacabka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dulqaadka ay muujiyeen iyo sidoo ay ula shaqeynayaan ciidamada amniga. waxaan rajaynaynaa in ciidamada ay garab istaagi doonaan shaqadooda ay muujiyeen iyo sidoo ay ula shaqeynayaan ciidamada amniga. waxaan rajaynaynaa in ciidamada